gabdhaha diyadoodu waa waxa weeyaan ama magtoodu waa 100 weeye anu markaan saarayahay cid igu khasbaysana ma jirto cid aan u danayn hayana ma jirto cid aan xeer ka sugahayana ma jiro ilaahay dartii baan saa u leeyahay waa inay aynu wixii hadda ka dambeeya ilaahay ka cabsano waxan waa xuquuq weeye gabadha dhimatay dhiigeeda caruurteeda xaq u leh ehelkeediiba xaq u leh xaqaasna waa 100 oo sida ragga oo kala aha ha la siiyo 100kaas saasaan leeyahay oon kula talinhayaa dawladda oon kula talinhayaa culimada oon kula talinhayaa odayaasha oon kula talinhayaa ruux alla ruux ilaahay ka cabsanaya oo xuquuqda ilaalinaya dhanba aan kula talinhayaa nuur waxaan mashruucan maanta uu ka hadlayo waxa soo gooni ku ah masadada la wado waa mashruuc cusub oo hadda la rabo in loo hirgeliyo maya arintani wax cusub ma aha arinta quraanka iyo sheegan ku leeyahay ani sideedaba waxaan ku leeyahay waxyaabaha iska daaya aha hebel baa yiri iyo hebel baa yiri mas'aladani mas'ale hebel ma aha mar hadduu qur'aan meesha joogo xadiisna joogo war qur'aanka iyo xadiiska inaan ku camal fallo in baa loo baahan yahay xadiiskan ay wahmiyeen xadiiskan ay halmaameen ay ku halmaameen kontonka ahna de xadiiska waanu xaqiijinay inuu xadiis daciif yahay baanu xaqiijinay waa intaas way meesha waxa yaala waxa tir dumarka hadda ayaa ka nacaf badanaa maya anu may ma dhihin dumarka iyaga hadda ka nacaf badan ma ana dhihin arinta khalad iyo ha u fahmina waxaan idhi haddii lalahaa mararkii hore ay culimadii hore lahaayeen ragga ayaa dumarka ka awood badnaa oo ka nafci badnaa de hadda waxaa la heli baan ku idhi dumar raggooda ka nafci badan dumarkoo dhan malihi laakiin dumar raggooda ka nafci badan oo caruurtooda iyo reerkooda ooga nafci badan ayaa dhici kartaan ku idhi hadda in la helo saas darteed hadal meesha maba yaalaba laakiin hadda waxaa jira dad lagu tilmaamo quraaniya oo yiraahdo anaga waxaan aaminsanahay quraanku waxa uu sheegay kaliya may salaada hatta hadda marka la yiraahdo inay tahay quraan kaliya marba qaar uu sheegay xadiidkan uu sheegay oo may waan ku fahmay wasalat risala waan ku fahmay anigu kumelihi qur'aanka kaliya anigu waxaan ku idhi nabiga ilaahay muxuu ku yidhi litubayana linnaas maa unzila ilayhim wixii dadka loo soo dejiyay inaad u caddayso ruuxii marka dhaha qur'aanka keliya un baan anigu ku qancaa waa beenaalo weeye muslin ma aha way marka ma dhihi karno hadii hawsha hadda maadaama dadka u sheegtay sida aad hadda aaminsan tahay hadda wixii ka dambeeyay dib ku noqonayso maadaama ay ogaadeen hadii hadda sax su'aashaadaasi arrin aad u wanaagsan weeye anigu waxaan leeyahay wixii hore dhaafay inay joojiya ruuxuna ma dhahayno uu qaldanayo kan buu aha ma dhahayno laakiin hadda waxaan leenahay ruuxii aayadaas quraanka ha gaadho xadiiskaasina gaadho ama oday ha noqdo ama uwaas ha noqdo ama reer ha noqdo ama qabiil ha noqdo ama dawlad ha noqoto ama maxkamad sharciya ha noqoto ama nin culimo ha noqdo aayada quraanka ah markay gaadho xadiiska fasirahaya aayadana uu arko waxa waajib waxa ku ah inuu raaco aayada quraanka iyo xadiiskaas mas'aladaasna aniga leh nuur cabdi guudle ha loo soo meeda quraanka sheegay anu mari quraanka sheegay anu waxaan quraanka ma fasirayaa xadiiskana waa fasirayaa anu quraan jeebkayga kala ma imaan aayadani waa aayad quraan ku jirta suuratu nisaa bay ku jirtaa ya من قتل مؤمنا خطأ فتحرير من قتل خطأ مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله هذا القرآن هو حديث كله وحوله وفي النفس 100 من الإبل سوكيت هاي ما دام النبي قال لي عليه الصلاة والسلام وكو العلن ما دام النبي قال لي او إلهي كو أمر لتبين للناس وعلى روح القرآن كو سو دجنا ددك وعده ايادنا way sheegtay oo diyadii in ay caam tahay bay sheegtay laakiin waa imisa ayadu ma cadaynin gamaadid media iyo teamkiina aad baad u mahadsantihiin magacaygu waa dr nuur cabdi guudle maareeyaha kulliyadda ilays arrintan la isdhex waday maalmahan oo social mediaha aad u socotay facebooka oo ku saabsan magta ruuxa dumarka ahaa ama diyada dumarka run ahaantii waa arrin aad u fiican oon doonahayo in laga doodo waxna la iska weydiiyo sababtay dadku say u fahansan yihiin yaa qaladaad fara badan ku dhex jira dadkeenu intooda badan ama se muslimiinta intooda badanba gabadha magteeda iyo ninka magtiisu way kala duwan yihiin oo ninkana 100 baa laga bixiyaa gabadhana 50 baa laga bixiyaa run ahaantii culimadeena hore waa wanaagsan yihiin waxba kama sheegahayo laakiin diinteenu waa diin u baahan adillo in la raaco diinteenu way ka duwan tahay diimaha kale ee ruux iyo shakhsi lagu ixtiraamo diinteenu waxay u baahan tahay marka ugu horeysa in la isweydiiyo daliilka muxuu yahay daliilkiisu muxuu yahay daliilkiisu سوكيتا إلهي قرآن كم حكوله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسوله سورة النساء
konton iyo sagaal aayadda konton iyo sagaalaad suuratu nisaa waxa allaala wixii doodii ka timaado ilaahay ha loo celiyo rasuulka ha loo celiyo saasuu qur-aanku ina leeyahay marka wax walbaba oo laga hadlahayo waxaa loo baahan yahay in la dhaho muxuu qur-aanku ka qabaa muxuu xadiisku ka qabaa kolkiisaa la dhaho anigu arrintan muddo dheer baan baadhahayay oo dee ruuxan dumarka ahaa iyo ruuxan ninka ahaa labadaba waa walaalo weeye annisaa shaqaaqi rijaal buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam dumarku waa ragga olankiisa oo laga jeexay oo la mid ahaa oo la nool waxyaabo fara badan buu raggu kaga fiican yahay dumarka oo la dheer yahay nolosha iyo khalqiyadaba waxyaabo fiicanna dumarka la dheer yacni ruuxa waxqabadkiisa iyo shakhsiyaddiisa ruux waliba inta ilaahay ugu talagalay ayuu leeyahay laakiin kolkii xuquuqda la dhaho xuquuqda waxa weeyaan marar badan oo uu dumarka ilaahay uu yidhi ragga aayad qur-aan ha ku soo arortay oo markii dhaxalka la leeyahay dhaxalka iyo middan aan ka hadlayna isku nooc maaha tan waa diyo waa dhiig la qaadanayo dhaxalkuna waa ruux gabadhu iyadaa qaadanaysa labada mas'alay dad fara badan oo culimaha isaga margan caamada iska badaaya culimo fara badan ba halkaa ku dhex qasan oo aayadda dhaxalka ah ee leh lirajuli misla xadil unhayayn aayaddaasi waxay leedahay kolkuu aabbuhu dhinto dhaxalka xoolaha ah wiilka iyo gabadha oo ma sinna wiilkaa laba dheeraysanaya oo 3 dalool laba wiilku qaadanaya gabadhuna mid bay qaadanaysaa taana waa sax ilaahay baa sidaa yidhi sababkay tahay gabadha xil ma saara markii ayna guursanin xil ma saara aabaheed iyo walaalkeed bay dusha ka saaran tahay markay guursatana ninkeeda dusha ka saaran tahay wax xil ahoo saaran ma jiro laakiin arrinta dhiigga ah ee diyada ah ee magta ah taa way ka duwan tahay magta asal gabadhu ma qaadanayso wayba dhimatayba waa la dilay ma qaadanayso xoolaha ayaa qaadanaya dadkii dhaxalkeeda lahaa baa qaadanaya waa xaq ay dadku leeyihiin oo waa midda uu ilaahay qur-aankana gebigaba diyada dhanba qur-aanka hal aayad baa ku soo aroortay oo nafta oo kaamil ah ka sheekaynaysa gacmaha iyo lugaha iyo kolkii la dhaho aayad kalaa ka sheekaysa laakiin ruuxa dilka kolkii la dilo ruuxii haddii khata loo dilay oo gaf loo dilay ayuu ilaahay diyadiisa hal aayad ku sheegay oo suuratu nisaa ku jirta aayadda 92 aayadda 90 waman qutila khata'an fataxriiru raqabatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlih saasuu ilahay leeyahay subxaana wa tacaala ruuxii qalad loo dilo waxaa waajib ka ahaa oo in la bixiyo loo baahan yahay yaa ilaahay wuxuu yidhi wadiyatun musallamatun ilaa ahlih dhiiggan yaa qaadanaya markaa musallamatun waa la bixinaya oo waa la siinaya ilaa ahlihi baa la siinaya dadkii dhiiggiisa lahaa baa la siinaya tii hore aan ka soo hadalnay ee dhaxalka ahayd gabadhu iyadaa qaadanaysa saas darteed baa wiilka loo badiyey ila wiilka miisaaneed baa saaran oo mashaakilaad fara badan baa saaran tan laakiin gabadhii dhimatay caruurteedii ninkeedii walaalaheed yaa xoolihii qaadanaya xaqooda markaa waa inuu waadix noqdaa marka aayaddan qur-aanka aha waxay camimtay raggi iyo dumarkaba inay isku mid yihiin iyo aayaddu cayimtay oo waxaa la yidhi wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi ruuxaa la dilay ehelkiisii ayaa xoolahan la siinayaa saasaa la yidhi marka meeshan maxaa ku jira kow marka hore in la camimay oo raggii iyo dumarkiiba ay ku wada jiraan aayaddan qur-aanka inaba ma sheegayso rag gaar aha inana ma sheegayso dumar gaar ah man carabiga ruuxu yaqaana waa man waa nakiro ruux kastaa gelaya dumarkaa gelaya raggaa gelaya man qutila khata'an khata loo dilay fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi mu'minan taasi yayna dadka barhkood fahmin ومن قتل خطأ مؤمنا كلكو إلهي إلهي مؤمنا تاني وعام مؤمنا تاني ومد عامها dadkii dumarkii raggu dhan wada galayaan su'aal marka xagga soo galno haye soo ma jiraan xadiis sheegaya in gabdhaha diyadooda konton tahay waan soo wadaa in yar ikaad waan soo wadaa aayadan marka aayadani konton iyo 100 midna ma sheegin wadiyatun musallamatun ila ahlihi balay waa dhiigii waxa la siinayaa qoyskiisa ruuxa dhintay laakiin ma 100 ba ma 50 ba aayadu ma cadaynin mar dumar ba ma rag ba aayadu ma cadaynin waa caam xadiis ba aayadan marka fasiray waa xadiiska uu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam wa fi nafsi 100 min al-ibil nafta waa xadiis dheer uu dheer yahay Umar bin Xabs nin la yiraahdo ayuu nabigu kitaab u qoray oo Yaman u kacay marka waxyaabo badan ba meeshan ku jira hadii lugta la gooyo hadii gacanta la gooyo hadii dhiiga hadii iliga la tuuro hadii isha la tuuro waxa soo dhan halkaas uu quraanku wuxuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam wa fi nafsi riwaaya kale waxay leedahay nafsul mu'mina
الرواية ده 100 من الإبل بقول أو جيل أهلا بحنايا حديث كاسي ما كلا قادن رجي ضمر نفسي بالير نفتو دي رجل ويجلسان ضمر كانوا ويجلسان 100 من الإبل بقول مركع 100 من الإبل كانوا وحيفسريسا عدينيسا آيات دي هراء هي دية مسلمة للأهل دية قيس كلاسين هي الروح عند انت قيس كيس كلاسين أيوه وإمسا حديث كان أشياء 100 من الإبل وبقول هلا بس حديث كاسنا وفسرها يا آيات وقطعية الورود ويا آيات وحلقها اللي كرمها تفسير بقى بهانتاي او مطلق ويانو ديدن با ان لا فسر الله بانا ديدينا waxa fasiri xadiiska wax dambe ka daba iman kara ma jiro su'aashadu weydiisay marka talkana iimaanaysa aha ahad culimadii hore ee dadku intooda badan kontonka oo bixinayay maxay haystaan ahadiis ba jirta oo le ma garanaysaay dumarku in ay konton diyadooda tahay ahadiistaasi way jirtaa laakiin waxa gidigeed sa u dhantay waa daciif weey waxayna ka hor imaanaysaa aayada quraanka waxayna ka hor imaanaysaa ma garanaysaa xadiiskan kale ay ka hor imaanaysaa waana daciif daliil waxaan u hayaa tanan ku sheegayo aayadan quraanka aha ma ayna kala qaadin rag iyo dumar laakiin waxyaalo badan waxa jira quraanka aan loo sheegin xadiisada lagu sheego waxa mid aan ku sheegayo wixii aan quraanka lagu sheegin oo dhan hada xadiiska hadii lagu sheego xadiiskeenu qaadanayna laakiin markii quraanka lagu sheego xadiisku quraanka uu fasiri karaa mooyaan kama hor imaan karo marka quraanku wuxuu ku sheegay aayadan kaliya aan ku dhahay aayadan kaliya ku jirto quraanka oo dhanba aayad ka hadlaysa diyada ilaahay wuxuu leeyahay wadiyatun musallamatun ilaahi ragina lama kala qaadin ragii dumarka lama kala qaadin yaa kala qaaday xadiiskan kala qaaday nuska yiri xadiiska nuska yiri waa daciif daciifna lama daliishanayo sidiisa markay xuquuq timaado sababtay waxaan hadda waa xuquuq oo mid aayada quraanka ay leedahay wadiyatun musallamatun ilaahi waxa xaq leh ehelkiisa in la siiyo diyadan diyaduna waa imisa xadiiska kala cadeeyay 100 min al-ibl yiri inuu daciif yahay madhabiyada kidi culimada oo dhan waa la isku waafaqsan yahay xadiisku daciif yahay hal ruux oo dhihi kara xadiiskaas waa saxiix ma jiro hay'ado yimaadeen سودين حديث كاسي waa ضعيف wali حديث ما هو الى 4 حديث وي جديد 4 تا ama 5 noqday 4 waan huba laakiin 5 tan ka shaqeysnaa waa daciif wي marka waxa leedahay ha wixii hadda ku horeeyay kontakii qablaha laga qaaday total khalad hada leedahay horta wixii hore inaga daa afa Allah amma salaf culimadii hore hal maya culimadii hore waan ixtiraamayna waxa culimadii hore waynu ixtiraamay laba arimood bayna haysteen saddex arimood ba ka soo qaad mise laba dheh كو حديث ضعيف كها ويدليشان هي حديثتي مركان دبا غلاي اون مدة دheer aan ku daba jireen culimada xadiiska wax walba diinteen culima gaar u aha culimada xadiisku xadiistan waa daciif baa leeyahay halka inaga dhig markaa waxay kale haysteen oo ay iyagu xujo ka dhigan hayeen waxa la dhaho ijmaac waxa weeyaan waa ijmaac al umma oo ummada wax ku ijmaacday oo isku waafaqday ummada wax ku heshiisay wax ku heshiisay taana way daliishan hayeen ijmaacaasi lama sheegin horta mar ay muslimiinta oo dhan inta isu yimaadeen ay go'aan wada qaateen ma jirto horta sideedaba waxay culimadu leeyihiin oo laga soo wariyay imaam Shaafici laga soo wariyay ma garanaysaa culimo kale waaweyn laga soo wariyay yaani wax khilaaf ah mas'aladan kontonka inay tahay wax khilaaf ah oo ummadda ka dhaxdhacay ma aanan maqal marka waa wax uun si yar guud u socday mooyeen wax inta culimadu inta isu yimaadeen oo laga dooday oo nin walba xujadiisii la dhageystay la isku waafaqay ma jiro taasi waa kow talabaad marba haday aayad taalo ama xadiis saxiix yaalo culimadu ma ku ijmaaci karaan wax diinteenu ma aha diin culimadu leedahay ma aha diin rag leeyihiin ma aha diin rag haween ku leeyihiin ma aha waa diin ilaahay leh oo nabiga loo soo dhiibay oo quraanku ku soo dagay marka inaga marka ugu horeysa fiir aayada ugu horeysay aan ka hadlay waxa weeyaan fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasulihi ayu ilaahi subhanahu wa ta'ala wa ulul amri minkum ba'da dhalika imanaysa marka ugu horeysa hadii dood la yiraahdo doodka ugu horeysa waxaynu aadeena quraanka muxuu ka yiri marka labaadna waxaynu aadeena xadiiska muxuu ka yiri aayad ba cad oo meesha taala xadiis cadna wuu jiraa oo waafaqsan aayada axaadiista kale oo dhan aayada ka soo horjeedana waa daciif weeye culimadu marka intay shirto inay dhahaan annaga aayada fasirayna awood uma laha xaqna oo ma laha ka dhaxgal marka ma hadda kadib waxa leedahay in diida konton la qaado ma aha waa in boqol la qaado kaad waan ku soo wadaa culimada hadalkeedii waxaan rabaa culimadu inay si fiican u dhageystaan oo waan arkay oo marar badan waxyaabo ay isku qaldayaan baa jirto inay kala ogaadaan yaa jirta culimadu xataa ijmaacan markay leeyihiin ijmaacu sidiisa gooni uma taagna ijmaacu wuxuu u baahan yahay mustanad waxa la dhaho ama wax uu ku tiirsan yahay oo ama aayad ah ama qur'aan ah marka ijmaacu wuxuu ku tiirsanaa axaadiista daciifka ah axaadiistina waa daciif baan nidhi oo xuquuq looma daliishan karo banaankeenu iska dhiganay
isaga laftiisa ijmaaca markii dib loogu noqdo laba arrimood bay cillo ahaan u keensanayaan oo ah inay raggu ay ka ma garanaysaa xagga qoyska ay uga nacfi badan yihiin dumarka oo nafcigooda u saasaa taana hadday jirtay berigaa hore ee culimmada hore ay ka hadlaayeen hadda waqtigeena inaan joogno ma jirto oo hadda dumarka jooga jigjiga iyo dumarka jooga ma garanaysaa waddanka hadda jooga maanta xaadirka ku ahaa waddankeena jooga dhammaantood rag badan oo waxaa jira ay dumarkooda masaarifaan oo dumarku ay ka xoog badan yihiin oo dumarku ka nacfi badan yihiin marka haddii mas'aladii ahayd nafci haddee maanta dumar badan oo raggooda ka nafci badan baa jira hadday ahayd siyaaba noocaas oo kaleo dhanna halkaasay ku istaagaysaa oo iyadana ma garanaysaa meeshaasay ku imaanaysaa hadda marka anigu waxaan leeyahay laba arrimood oo wadaaduhu inta badan ay deliishanayaan ha iska daayeen mas'aladan oo kolka u horreysaba ay la soo boodahayaan mas'alada dhaxalka meeshan dhaxal ma taalo ee xuquuq baa taalla halka ha iska dhigeen hadda xuquuqdeen u nimide xuquuqdiina ilaahay qur-aankiisana wuu ka simay xadiiskiina wuu ka simay wax la yidhaahdo oo dood kalena meesha ma taalo gabdhaha diyadoodu waa waxa weeyaan ama magtoodu waa 100 weeye anu markaan saarayahay cid igu khasbaysana ma jirto cid aan u danaynhayana ma jirto cid aan xeer ka sugahayana ma jiro ilaahay dartii baan saa u leeyahay waa inay aynu wixii hadda ka dambeeya ilaahay ka cabsano waxaan waa xuquuq weeye gabadha dhimatay dhiiggeeda caruurteeda xaq u leh ehelkeediiba xaq u leh xaqaasna waa 100 oo sida ragga oo kale aha ha la siiyo 100kaas saasaan leeyahay oon kula talinhayaa dawladda oon kula talinhayaa culimada oon kula talinhayaa odayaasha oon kula talinhayaa ruux alla ruux ilaahay ka cabsanaya oo xuquuqda ilaalinaya o dhan baan kula talinayaa dr nuur waxaan mashruucan maanta uu ka hadlayo waxa soo gooni ku ahaa masadada la wado waa mashruuc cusub oo hadda la rabo in loo hirgeliyo maya arrintani wax cusub maaha arrinta qur-aanka ma sheegan ku leeyahay ani sideedaba waxaan ku leeyahay waxyaabaha iska daaya ahaa hebel baa yidhi iyo hebel baa yidhi mas'aladani mas'ale hebel ma aha mar hadduu qur'aan meesha joogo xadiisna joogo war qur'aanka iyo xadiiska inaan ku camal fallo unbaa loo baahan yahay inaynu raacno unbaa loo baahan yahay hadda yaa ka hadlay iyo hebel muxuu sameeyey iyo war waxaasoo dhan hebel ma taalo kolkii laakiin la dhaho culimo kale miyay arrintan oo kale ka hadleen way jiraan culimo badan oo ka hadlay oo aad u fara badan waxaa ka mid ah hadda raggii ninkii berigii dhawa dhintay allahu naxariiste doctor yusuf qardaawi oo macruuf ka ah adduunka o dhan macruuf ka aha runtiina masaa'il fara badan oo ma garanaysaa aad u murugsanayd oo caddeeyey yaa ka mid ah ragga arrintan wuu sheegay oo weliba wuxuu arrin u baahan buri inaan dib ugu noqono isagu wuxuu leeyahay arrintan kontonka ahaa in dib loogu noqdo weeye oo gabadha iyo ninka la simo 100 laga dhigo saasuu taagan yahay waa rag badan oo kamid isaga la mid ahaa aniga laakiin iyaga ani ima khuseeyaan kuwan kale ee kontonka yidhina ima khuseeyaan midkoodna ima khuseeya waxaa khuseeya xaqu muxuu yahay qur-aanku muxuu yidhi xadiisku muxuu yidhi markaa kadib baa culimmadu maxay xadiiskan ka dheheen maxay aayaddan ka dheheen culimmada dowrkoodu waa in ay sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam nabigu ilahay muxuu ku yidhi litubayana linnaas waanzalnaa ilayka dikra litubayana linnaas adiga qur-aanka waxaan kugu soo dejin inaad dadka u caddayso ayadda qur-aanku ilahay soo dejiyey oo wuxuu yidhi fadiyatun musallamatun ilahli yaa inuu caddeeya laga rabaa culimada maha in laga caddeeyo horta nabigu muxuu ka yidhi nabigu wuxuu yidhi 100 min ibil waa 100 halaad buuri bas culimada waxaa la rabaa inay dadka shacabka u caddeeyaan war ruuxii dhintay ayaddu saasay tiri 100kaas saasaa la yidhi xadiiskan ay wahmiyeen xadiiskan ay halmaameen ay ku halmaameen kontonka ahna dee xadiiskii waanu xaqiijinay inuu xadiis daciif yahay baanu xaqiijinay waa intaas way meesha waxa yaalla waxaa tiri dumarka hadda ayaa ka nacfi badanaa tiri maya anu may ma dhihin dumarka iyaga hadda ka nacfi badan ma ana dhihin arrinta khalad iyo ha u fahmina waxaan idhi haddii lalahaa mararkii hore ay culimadii hore lahaayeen ragga ayaa dumarka ka awood badnaa oo ka nafci badnaa de hadda waxaa la heli baan ku idhi dumar raggooda ka nafci badan dumarkao dhan malihi laakiin dumar raggooda ka nafci badan oo caruurtooda iyo reerkooda ooga nafci badan ayaa dhici kartaan ku idhi hadda in la helo saas darteed sideedaba culimadu waxaa wax usul fiqi la jira oo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadaman xukumku wuxuu wareegahayaa daba socdaa cilada markaa meeshaa taalla haddii la helo ciladii ama la waayo labaduba xukumkood meeshaasu raacaya waa culimadu waa usul fiqi wey waa usul fiqi marka waxaan leeyahay haddii culimadu xataa ay deliishanhayeen fikir ahaa oo anu waxaan leeyahay sideedaba culimadu wax ma deliishan kartaan mar haddayba aayaddu halkaa inaad si fiican u fahantaan rabaa dadkuna ay si fiican u fahmaan marba aayad qur'aan hadday taalo hadal meesha maba yaalaba laakiin hadda waxaa jira dad lagu tilmaamo quraaniya oo yidhahdo annaga waxaan aaminsanahay qur-aanka waxa uu sheegay keliya may salaada xataa hadda marka la yidhahdo inay tahay qur-aan keliya marmarka qaar lagu sheegay xadiidkana uu sheegaa may waan ku fahmay wasalat risaala waan ku fahmay anugu kuma lihi qur'aanka keliya anigu waxaan ku idhi nabiga ilahay muxuu ku yidhi litubayana linnaas maa unzila ilayhim wixii dadka loo soo dejiyey inaad u caddayso
ruuxii marka dhaha qur-aanka keliya un baan anigu ku qancaa waa beenaalo weye muslin ma aha diintana kuma jiro oo ilaahay buu beeniyey sababtoo ilaahay baa rasuulka soo diray muxuu ilaahay rasuulka u soo diray inuu dadka u cadeeyo qur-aanka marka ruux dhihi kara qur-aanka keliya aan qabsanaya ma jiro anu kumaan dhihin anu waxaan ku idhi aayad qur'aan ah keligeed baa diyada ka hadashay qur'aanka oo dhan aayaddii ma ayna kala cadaynin rag iyo dumarka caan bay ka dhigtay nabigii oo loo soo diray inuu caddeeyo qur'aanka oo ilaahay litubayan linaasina yaa fasiray aayaddii oo wuxuu yidhi wa fi nafsi mi'atun min alibil nafta markii la dilo 100 geel ah ka waajibaysa waa xadiis wey waa xadiiska nabiga wey xadiiskuna waa saxiix wada ku jira Umar bin Xasmi wariyay mararka barkood way jirtay culimo ka hadashay inuu mursal yahay laakiin mursalkani hadduu xataa mursal yahayba culimo badan baa xadiiskan saxiix yiri culimo badanna waxay dhaheen waa xasan wax oo dhanna waxaaba isku soo fooqsanaya xadiiskani wuxuu waafaqsan yahay aayadda quraanka marka aayadda quraanka uu waafaqsan yahay woona saxiix saasu macnihiisu saxiix ku noqonaya ta kale ee meesha kugu jirta ahkaam badan buu xadiiskani ka hadlaya oo waa kitaab uu qoray nabigu calayhi salaatu wasalaam oo uu u diray ahlu yaman عمر بن حزم بن أسي ديبي كتابك وكد الأقري حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام وكتاب ديروي وقرال وراق ديروي وراق ذا دير وحا كجرت أحكام فربضان با كجرة هدي الروح إلي قال لغا تورو إمسو نقوني هدي الروح إيش لغا تيرو إمسي نقوني هدي الروح قعنت لغا قويو إمسي نقوني هدي الروح لغت لغا قويو إمسي نقوني هدي الروح علوش لغا رفتو إمسي نقوني وهدي الروح فرط لغا جرو فرتيس وإمسا شنط فرض وإمسا وحاسو لما حديثك كجرة marka culimadu waxa la yaabanahay xadiiska way wada qaateen laakiin intan tiri waa isku xadiis weeye intan tiri waa fi nafsi 100 min al-ibil waa ay u kala qaadeen oo ay gabadhiina kontanka xadiiska daciifka u la aadeen harninkiina boqolka ay u la aadeen anu halkaas abana yaabana fahmin ujeedada halkaas ama dadka qabaaba kaligeedaba culimadana anu waxaan ku iri isu keenkeena oo inta soo aqridaan oo si fiican loo soo aqriyo buuqa hal iska dhaafo meesha waxaynu u joognaa marba haduu daliil yaalo hebel baa yiri ma taalo war adiladii la yimaada quraankii la imaada ahadiistii oo saxiix la imaada xadiis daciif aan meesha keenina soo kayta xadiiskan wuxuu leeyahay ayada quraanka waxay leedahay diyatun musallamatun ila ahli wa xuquuq ahlku ay leeyihiin oo carruurteedu ay gabadha carruurteedii baa qaadanaysa abaheed baa qaadanayo hooyadeed baa qaadanaysa iyadoo ma qaadanaysa tan ay ku ordahayaan ay leeyihiin waa dhaxalkana taas dhaxal bay ahaydoo iyada qaadanaysay labada mas'alo way kala duwan yihiin way kala duwan yihiin tan aabihi ninkeedii baa wax ka qaadanaya aabaheedna waxba ka qaadanaya carruurteedina waxbay ka qaadanayaan waa xoolihii iyada ka soo waajibay 100 weeye lagama dhimi karo aniga mas'aladan waxaan baarahayay 20kii sano ee la soo dhaafay intii aan dibadda jiray oo dhan markaan dibadda jiray masaa'ilkii aan aad u baari jiray kamid tahay mas'aladani oo aan soo xaqiijiyay xaqeeda aan soo xaqiijiyay xaaladeedana aan soo xaqiijiyay ciddii tidhaahda wax kalaad haysaana waxaan u baahannahay inay keenaan daliilkeeda waa adilada waa la baadhaa adilada waxaan ku idhi kolkay qur-aanka tahayna qur-aankii baad baadhi qur-aanka iyo xadiiskiina waad baadhi axaadiista markaan ku leeyahay xadiistani waa daciif markaan ku leeyahay xadiis baan isu dul taagay raggii wariyo o dhan baan isu dul taagay xukunka waxay culamadu ka dhaheen baan isu dul taagay طبعا ده والله انا صعو انا يعني waxaan mutakhassis ku ahay tafsiirka iyo quraanka inta fuqtaas ku ahay xadiiska iyo quraanka mutakhassis ku ahay ruuxa wali waa quraanka iyo xadiiska way aniga digrigaygu waa shariico masterkaygu waa quraan iyo xadiis PhD deeduna waxa weeyaan waa fikr islaami oo ma garanaysaa siyaasad sharciya ayaan ku soo takhasusay maya wadan maaha waa siyaasad sharciya waa si guud weeye wadan maaha waa siyaasad sharciya waa islaamku waxa uu ka qabo maamulka iyo fikirka siyaasiga wuxuu ka qabo jaamacadda waa jaamacadda ka soo baxay waa jaamacaddii hore ee digriga ka soo qaatay waa nadwatul ulama jaamacaddii dambe ka soo qaatay masterkana waa jaamaca islaamiya alcaalamiya oo islaamabad ku taala Pakistan naduna waxay ku taala Hindiya ku taala digriga PhD deeduna waxa weeyaan waa Malaysia jaamaca alwadaniya almalaysiya weeyaan ama National University of Malaysia UKM laakiin kulliyad gib waxaan dhan takhaasuskaygii weeye sida aanu 40 sano wax baranay waxaan baan ku takhasusahay marka ma aha wax aan maanta iska iri ama aan ayad quraan intaan saa u yar arkay aan fiiriye ma aha waxaan takhasus u leeyahay on soo baaray culimadana waxaan ku boorinayaa walaalayaal hal la baaro mas'alada aan soo nimaano ruuxii haya ayad kale oo quraan ah ama xadiis kale oo saxiix ah waan soo dhaweyn waana ka dhageysan xaq hadii aan u arkay inuu isagu hayana waan raaci oo wax doodi ma taalo ani waxa ay xukuma ayada quraanka iyo xadiiska saxiixa يعني سال الله صحيح كنت واسد إمام الشافعي رحمه الله سبحانه وتعالى وإنه عن هيصنا مذهب كيسة إذا صح الحديث فهو مذهبي أفرت مذهب بقى وحيد هن مذهب كشافعي جها مذهب كحنفي جها مذهب كمالكي جها
مذهب حنبلي أفرت مذهب وحيسكوا فقسين إذا صح الحديث فهو مذهبي هذا حديثك صحيح النقطة ومذهب كي قوي هلا يطلع أنا وحنا لي حديثك هلا راعو سداس ويان مركا إنه عدالة درة إن قبلها كنتن عدالة درة معها قبلها عدالة درة كنت ما هي وعدالة درة قويس كي قبلها إيه عرورتي اللي قال هي وي إن كنت الله شيء وعدالة درة وي دين ترى ما قبته وها إلا صحة ودب لون نقضة وحي هراء عفى الله عما سلف وحي دعي هراء إنك تشوفيه أو ما دام وح لوه شيء هاي ماي أنا وح بالوه شيء ما بالهبة وحبا الله إجماع وهنكوش لغاية أو مايا دم بكم النقرة سوي اجتهادين روحوا مر هدو اجتهاد كيساسي أي الدين جعيل إيا حق هل مر هدي أي كتاهي نبي عشق عليه الصلاة والسلام وحويا دم بمله بل وحابا هدو أصيبنا لا أجربه هليا هدي انتو ددالو وحقي أصيبه لا أجربه هلي لكن هدو انتو ددالو وحقي قفو هل أجربه هلي واي مركز ما ده كنا هدي هوش هذا ما دام هدك أشيتي سيد هذا مش انتهي هذا وحي قدم يردم يكون قنصه ما دام اوغادين هادي هدا صح سؤاشاس ارن aad u wanaagsan way anu waxaan leeyahay wixii hore dhaafay inay joojiya ruuxuna ma dhahayno uu qaldanaya kan buu aha ma dhahayno laakiin hadda waxaan leenahay ruuxii aayadaas quraanka ha gaadho xadiiskaasina gaadho ama oday ha noqdo ama uwaas ha noqdo ama reer ha noqdo ama qabiil ha noqdo ama dawlad ha noqoto ama maxkamad sharciye ha noqoto ama nin culimo ha noqdo aayada quraanka ah markay gaadho xadiiska fasiraya aayadana uu arko waxa waajib waxa ku ah inuu raaco aayada quraanka iyo xadiiskaas hadii uu laakiin aayad kala hayo ama xadiis kala hayo oo saxiixa hana la soo wadaaga anaga ma garanaysaay ka qancinayne waa intaas wax meeshayaan marka wixii hadda ka dambeeya waajib waxa ah in la raaco oo boqol laga bixiyo gabadha hadii boqolka laga bixin waayana waa dulmi weeyi oo diintii laga galay oo ahalkii gabadhana laga galay oo xuquuqdoodii laga galay mas'aladaasna aniga leh nuur cabdi guudle ha loo soo maada quraanka sheegay anu mari quraanka sheegay anu waxaan quraanka ma fasiraya xadiiskana waa fasiraya anu quraan jeebkayga kala ma iman ayadani waa ayad quraan ku jirta suuratu nisaa bay ku jirtaa من قتل مؤمنا خطأ فتحرير من قتل خطأ مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله هذا القرآن هوي حديث كله وحوله وفي النفس 100 من الإبل سوكيت هاي ما دام النبي قال لي يري عليه الصلاة والسلام وكو العلن ما دام النبي قال لي يري او إلهي كو أمر لتبين للناس وحلا روحي القرآن كو سو دجنا ددك وعده ايادنا way sheegtay oo diyadii in ay caam tahay bay sheegtay laakiin waa imisa ayadu ma cadaynin nabiguna عليه الصلاة والسلام waa imisadii buu caday oo wuxuu yiri nafta waxa laga qaadaya 100 oo yaa waxa ka waajibaysa 100 geel ah nafta ka waajibaysa man qatala mu'minan khata'an فتحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله dadka barkood waxa laga yaabaa in ay wadaadaha barkood ku dhahan mu'minan baa la yiri maxaa mu'min loo raacin way taana waa qalad mu'minan tani waa laga cabirayaa muslimiinta oo dhan sababtay tahay marar badan ilaahay uu tacbiirka kolku camimo waxa kamid ah mesela inabal mu'minuuna ikhwatun ba kamid ah inabal mu'minuuna la yiri rag baa laga cabiray laakiin gabdho mu'minka lagu dadka dhan muslimiinta oo dhan mu'min baa laga cabirayaa هل عبر باكو فلان waxaan kaliya aan u baahanayn oo wax inoo fasira diyadani waa imis inta aan baro baahanayn intiina nabiga fasirayo 100 min al-ibil baa la yiri marka waxaan leeyahay waa ku celinaya walaalayaal culimada aqoon-yahanada odayaasha dawladda ragga dumarka saan u dhannahay ilaahay laga cabsado ramadaan baa lagu jira ilaahay laga cabsado wixii hore ee ku jiray ha laga noqdo gabdhaha diyadoodu ama magtoodu waa 100 waxa 100 kaana iskale gabadhu malaha waxa iskale carruurteedii iyo ninkeedii iyo dadkii dhaxlayay baa iskale xuquuqda iyaga leh in loo diido oo la garamariyana waa dulmiga ha laga joojiyo ilaahay xaqayna waafajiyo Shabelle bank oo waa wabigiyo torturaya wabigiyo lacag